waxaa soo baxday saacadii aan soo dhaafnay saxiix laga been sheegayo ama la koobiyey ama Cabdulla Shidaay meeraas laga soo samaystay oo feelsa ah oo la leeyahay ergadi beeshii wacaysle waa la saxiixay waxaa la soo dhigay internetyada facebooka website-yada sidaa darteed marka dadka annaga wakiil aanu ahayn noona idmadeen inaan sadka Soomaali ay ku leeyihiin ama sokeeyaha la dhashay inaan wakiil uga nahay marka uu soo gaarin annagu aan u keenno waxaa lagu ridaa dadkii taradud badan walaahow tira badan waxaan marka cadeeynaa saxiixaas inuu yahay wax aan jirin wax laga been abuuray dadka annaga aan ka soo jeedno gaar ahaan wakiilka aan ka nahay dalka iyo dibadda waxaan u sheegaynaa xuquuqda ay leeyihiin hadday ahaaleed mid ergo iyo hadday ahaaleed mid xildhibaanba maalintii Soomaaliya miiska wax ku soo kala qaybsato saamiga ay leeyihiin annaga uga wakiila odayaashii ma sidaas ayadoon waxba laga ogeyn ay iyagii sameeyeen aan waxaan leenahay tolow raalli ahaada ma ahan inaan annagu hadhow meel luuqa aan wax ku qaban doonno haddii la yiraahdo meelaad adinku joogtaan oo aad ogtihiin oo sida aad noogu idmateena oo magacu uu u dhayahay ayaan soo dhigi doonaa wixii 135 kaas aan soo qaybsano haddii la yiraahdo ee aan qaybta u leenahay haddii ay tahay gooyinka haddii ay tahay sidii dadka raali gelintiisa qaabab kastaba waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo iyadoo raali laga yahay maahane si aan annagu ku takrifalno oo maro hoosteeda inayaan wax ku dhicin haddeerna waxyaabaha la geeyo meesha waa been abuur waa cadeynaynaa waxaan leenahay tolow sidaas wax uma jiraan waxaan leenahay marka insha Allah taala fari kama qodna hawshu waa socod doonta insha Allah waxaan wakiil idinkaga nahay sida aad horey uga dhigateen hawshaas inaan idin deeqsiin doono haddii la yiraahdo ilaa bilow min dhamaadkeeda haddii la yiraahdo dadka sameeyay oo qaabkaas sida marada hoosteeda ku sameeyay oo dadka hadda lama dulmiyo walaalka inaad dulmido shariicada islaamkana ma qabto ahalkuna deeraalin ma noqon doono tolna kuma noqon doono kuma naga karo maxaa yeelay nin aad asaga magaciisa inaad dulminayso aad u joogto asagoo waliba ku muuqda waa waxaan runtii wax lagu sheego oo hadda maaragtay aan la aqaanin xumaan ahayn oo wax xumaan aan geedna loogu soo ban